waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa kasoo qaybgalayaasha xafladan sida wanaagsan loo soo agaasimay anigoo ah aabbaha ikraan dr tahliil faarax waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa una bogaadinayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed dadaalka faraha badan iyo juhdiga uu ku bixiyey in ay ikraan cadaalad hesho waxaan ka warqabnaa in uu la kulmay rays iyo mashaakilaad fara badan dowladda federaalka madaxweynaheeda uu ku dadaalayo in kayskan uu dhinto waxay la mid tahay marka aad guddi u saarto qof aan lagu hayn ruux iyo raqba waxay la mid tahay qof caloosha ka soo jeeda oo aad guddi u saarto oo aan qof caafimaada ku jirin waxaa hubaala qofkaa inuu dhimanayo marka haddii aan nahay waalidka ikraan ma aqbali doono guddi loo saaro sababtu waxay tahay guddigu sharciyadna ma laha aqoon uma laha inay baaraan kayska noocan oo kale ah haddee xukunna ma ridi karaan marka in la abuuro guddi wax saxa ma aha dowladdu waxay leedahay hay-ada garsoora iyo hay-ada baaritaana oo aqoon iyo sharciyadu leh in laga wareejiyo oo waktiga lagu lumiyo guddi waa nidaam looga hor istaagayo cadaaladda waxaan halkan fariin uga dirayaa madaxweynaha farmaajo inaanu marnaba isku dayin inuu hor istaago cadaaladda ma hor istaagi karo haddii ay shaqayn waayaan garsoorka waddanka dacwadu waxay ka socon doontaa garsoorada shaqaynaya oo ay ka mid yihiin waddankan annaga aan joogno maraykanka canada iyo maxkamadda caalamiga ee adduunka ilaa aan helno cadaalad kama seexan doono aniga haddii aan geeriyoodo waxaa iga dambeeya dad fara badan keliya carruurtayda ma aha waxaa iga dambeeya saaxiibo fara badan oo aan ku leeyahay caalamka intiisa kale oo u soo taagan in ay ikraan cadaalad hesho waxaan mar labaad mahad idinka soo jeedinaya halkan garab istaagga aadna garab istaagteen taageerada aadna taageerteen aad baan idinka mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi